waxay ka mid yihiin goobaha ay dadku u aadaan dalxiiska, damaashaadka iyo nasashada. waxaana hubaal ah in aanu badankeenu ku riyoono in aan mar uun dalxiis u tagno mid ka mid ah jasiiradaha ugu bilicda wanaagsan uguna quruxda badan caalamka ee dhaca xeebta si aan halkaas ugu soo qaadano waqti aad iyo aad u qurux badan. waxaa jira dad sanad walba lacag u aruursada inay kusoo dalxiisaan jasiiradaha quruxda badan ee adduunka, laakiin waxaa jira kuwa ay halis tahay in lagu dalxiiso. waxaa jira jasiiradaha loo dalxiis tago jasiirado ka mid ah oo ilaa iyo hadda wax fasiraada aan loo helin waxyaabaha ka dhex socda ama ku dhex nool. jasiirado dadkii deegaanka ahaa ee ku noolaa ay hal marka war heleen dadkoodii oo maalinba maalinta ka dambaysa oo midba qarsoomayo meesha uu marayo iyo wax ku dhacayana aan la ogeyn, halka jasiirado kalena oo qof walba oo iibsada muddo yar gudaheed uu noqonayo mid dhinta iyadoo aan la ogeyn sababta ka dambaysa geeridiisa. muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa jasiiradaha ugu quruxda badan caalamka balse ay ku hoos duugan yihiin taariikho madow, kuwaasi oo kaa dhigi doona mid tallaabo gadaalka ugu celisa marka aad maqasho. magacaygu waa Daadir Carab, halka aad naga daawanaysaana waa Som TV Soomaaliya. kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka ogaalka dunida. jasiiradaha qaar inkastoo ay leeyihiin bilic iyo sumad qurux badan, haddana waxaa jirta sababo gadaal kuu dhigaya marka aad maqasho dhacdooyinka ka dhaca oo ah badankood kuwa aan fasiraad loo helin. jasiiradahaas waxaa ka mid ah jasiiradda Goyala oo ah jasiiradda dhacda dalka Talyaaniga, gaar ahaan meel u dhow deegaanka Napoli. jasiiradan ayaa laga sameeyay filimaan aad u fara badan, waxaana lagu naanaysaa jasiiraddii nacladeysneed. jasiiradan qof waliba oo taga ama iibsada waxay ku soo dhammaataa noloshiisa dhimasho. waxaa la sheegaa in bilowgii qarnigii 19aad uu deganaan jiray jasiiradan nin aan la aqoon oo ay dadku ugu yeeri jireen sixiroole. ninkan ayaa ahaa mid go'doon iska geliyey adduunka intiisa kale oo aan meelna uga bixin jasiiradaasi. waxa uuna ku noolaa kalluun oo ay ku sadaqaysan jireen kalluumaysatada ka shaqaysa hareeraha jasiiradaas. hal mar ayuu si kadis ah u qarsoomay ninkii, meel uu jaan iyo cirib dhigayna ilaa iyo hadda ma jirto cid ka warqabta. sheekadu halkani kuma dhammaan, balse labaatameeyadii qarnigii tegay waxaa jasiirada lahaa oo iibsaday nin maalqabeen ah oo ka soo jeeday dalka Switzerland. ninkan ayaa la dhihi jiray Halis Brown. maalin maalmaha ka mid ah waxaa la arkay ninkii oo la dilay laguna duuduubay roog u yaallay guriga, halka xaaskiisa laga helay iyadoo ku dhex jirta xeebta u dhow jasiiradda ayadoo dhimatay. arrinta la yaabka leh maaha ninkan iyo xaaskiisa oo keliya, balse waa cidda dishay oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn wax fasiraad ahna aan loo hayn. dhimashadiisa kadib waxaa iibsaday jasiiradda nin u dhashay dalka Jarmalka, isagana sidoo kale waxa uu u dhintay wadna xanuun. wax uuna dhintay isagoo jooga isla jasiiradan. intaasi kuma joogsan arrinta, isla sidaasi oo kale nin kale oo ka dambeeyay labada nin oo ku dhimatay jasiiradan oo iibsaday isla jasiiradan, isagana waxay ku dambeysay noloshiisa inuu isdilay kadib markii uu waashay. dadkii ugu caansanaa ee iibsaday jasiiradan waxaa ka mid ahaa maalqabeenkii la dhihi jiray Gianna Agnelli. ninkan ayaa ahaa guddoomiyihii hore ee naadiga Juventus ee ka ciyaaray horyaalka Talyaaniga Serie A, sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa maalgashatadii ugu waaweyneed ee shirkadda gawaarida sameysa ee Fiat. marka uu iibsaday jasiiradan muddo yar kadib waxa uu si kadis ah u shaaciyay in shirkadiisa ugu weyneed ee sameyn jirtay birta uu ku yimid hoos u dhac dhaqaale. jasiiradan ayaa maanta hoos tagta gacan ku haynta dowladda Talyaaniga, waxaana ilaa iyo maanta fasiraad loo waayay sababta qof kasta oo iibsada jasiiradan ay noloshiisa ugu soo dhammaanayso si la yaab leh. jasiiradda labaad ee aan ku soo qaadan doono daawadayaal muuqaalkeena maanta ayaa ah jasiiradda Roanoke oo ah jasiirad ku taalla agagaarka xeebaha waqooyi ee dalka Mareykanka. jasiiradan ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay jasiiradaha ugu yaabka badan caalamka. jasiiradan ayaa ka mid ah jasiiradaha aynu ka hadlayno maanta. jasiiradan waxay hoos tegi jirtay gumaystihii Ingiriiska oo gacanta ku dhigay 1587, waxaana ku noolaan jiray ku dhowaad 120 qof oo isugu jiray rag iyo dumar. waxayna ahaayeen
dadka ku noolaa badankood dad isri ahaan ka soo jeeda dadkii deganaa labadii Ameeriko ee loo yaqiinay Hindidii cadcaadeed. gunaanadkii sanadka markuu ahaa 1587 ayuu go'aansaday ninkii ka talin jiray jasiiradan oo lagu magacaabi jiray John Wyatt inuu u ambaxo dalka Ingiriiska si uu halkaas uga doonto cuntooyin iyo wax ay ku noolaadaan dadkii deganaa halkaas. wuu tagay laakiin saasaantii dagaal ee xilligaasi ka dhex taagneed Ingiriiska iyo Spain ayaa ka dhigtay mid 3 sano oo xiriir ah aan dib ugu soo laaban jasiiradii uu ka ariminay. maalintii uu damcay inuu ku soo laabto jasiiradda waxa uu la kulmay iyadii meeshii uu uga tagay dadka kana talinayay uusan joogin hal qof oo dhaqdhaqaaqa. arrinta la yaabka ku noqotay ayaa ah markii ay u kuur galeen guryihii goobihii ku yaallay jasiiraddaas ay ka waayeen wax raad dhiig ama dagaal ah. sidoo kalena hal qof oo dhaqdhaqaaqa ma joogin. intaasi waxaa kuu dheer xataa haddii ay dhinteen waxaa la arki lahaa meydkooda waa tan aan dhicin oo geeri iyo nololba cidna uguma tegin jasiiraddaasi. arrintan oo fajac la yaab iyo amakaag ilaa iyo maanta fasiraad loo waayo ku noqotay gumaystihii Ingiriiska. jasiiradda Miyakijima ee dhacda dalka Japan ayaa iyaduna ka mid ah jasiiradaha ugu halista badan adduunka. jasiiradan ayaa lagu naanaysaa jasiiradda afgashiga maxaa yeelay qof waliba oo jooga jasiiradan waxaa qasab ku ah inuu gashto afgashi oo ka ilaalinaya sunta iyo qiiqa ku jira hawada jasiiradan. jasiiradani ayaa ah jasiirad ay ka dhacaan fulkaanooyin badan. fulkaanooyinkanna kama dhigin dadkii deegaanka ah ee ku noolaa jasiiraddaasi kuwa isaga hayaama ama ka guura jasiiradooda, balse waxay noqdeen kuwa ku madax adeega oo aan meelna uga bixin jasiiradooda. waxayna ku noolaayeen sidaasi ka hor intaan la soo gaarin sanadka markuu ahaa 2000 oo uu ka dhacay halkaas fulkaano aad u weyn kaasi oo ka dhacay buur ku taala jasiiraddaasi oo loo yaqaano Hoyama. arrintani ayaa ka dhigtay dadkii deegaanka ah kuwa ugu dambeyn isaga carara oo ka cabsada waxyaabaha ka socda jasiiradan. laakiin muddo yar kadib fulkaanihii markuu dhammaaday haddana mar kale ayay ku soo noqdeen isla jasiiradii. markii ay soo noqdeen waxaa qasab looga dhigay in qof walba oo ka mid ah uu leeyahay afgashi ka ilaalinaya qiiqa hareereeya hawada jasiiraddaasi. waxaana ku yaal daafaha jasiiraddaasi codbaahiyaal ama makaroofano. marka uu kor u kaco qiiqa ku jira hawadaasi ayay dhawaaqayaan. marka ay maqlaan dadka degan jasiiraddaasi codka dhawaaqa makarofoonka marka ay maqlaan waxaa qasab ah inay xirtaan afgashiga meel walba ay ka joogaan hareeraha jasiiraddaas. arrintani ayaa ka dhigtay jasiiradan mid ka mid ah jasiiradaha ugu halista badan adduunka. jasiiradaha Bikini ee dhaca badweynta Pacifica ayuu Maraykanka u doortay sanadka markuu ahaa 1946 inay noqoto meesha uu ku tijaabinayo hubkiisa nuclear-ka. 12 sano oo xiriir ah ayuu ku sameeyay 23 tijaabo oo nuclear ah jasiiradahan. arrintan oo ka dhigtay in 3 jasiiradood oo ka mid ah jasiiradahan oo si gabi ahaanba u qarsoomay awoodda tijaabooyinkan daraaddeed. sidoo kalena waxay noqotay hawada jasiiradahaasi mid ay hareereysay sunta nuclear-ka oo aan ku habboonayn nuuc waliba oo ay leedahay nolosha. arrinta la yaabka leh ayaa ah in jasiiradahan markii uu Maraykanka u dooranayay saaxad tijaabo jasiirado aysan cidna ku nooleen, balse waxaa jiray qabaa'il dhan oo si nabdoon ugu noolaa jasiiradahan noloshoodana ku xidhnayd xoolo dhaqasho iyo kalluumaysi. laakiin markii Maraykanka ay go'aansaday in ay ka dhigtaan goobo tijaabo jasiiradahaas waxay noqdeen dadkii deegaanka ah ee deganaada jasiiradahan kuwa ka hayaama dhulkoodii lagana daadgureeyo. ilaa ay maantana waxay noqdeen dadkaas kuwo aan dhul lahayn maxaa yeelay jasiiradahoodii waxay ka mid noqdeen goobaha ugu halista badan adduunka. mamnuucna ay tahay in la galo ama lagu noolaado. suntan ku jirta hawada jasiiradahan daraaddeed ayaa sababay 12 sano ee uu Maraykanku u adeegsanayay tijaabada nuclear-ka. koonfurta badweynta Pacifico waxaa dhacda jasiirad Australian ah oo lagu magacaabo jasiiradda North Fork. jasiiradan oo ah jasiirad aad u qurux badan ayaa ah haddana jasiirad leh taariikh cabsi iyo argagax xambaarsan. 20meeyadii qarnigii 19aad waxay Ingiriiska u doorteen jasiiradan mar kale inay noqoto jasiirad ay gumaystaan. gumaysi kaliya maaha balse waxay qorsheeyeen inay noqoto xabsi ay ku xiraan dambiilayaasha ugu halista badan adduunka. qofka gala jasiiradan
ama xabsiga ay ka sameeyeen gumaystaha ingiriiska wuxuu si gebi ahaanba meel isaga dhigi jiray rajo ka qabidda inuu mar balaanka usoo baxo ama laga sii daayo xabsiga wuxuuna ahaa qofka soo gala in laga soo saaro meydkiisa oo keliya waxay ahaayeen maxaabiista ku xiran xabsigan kuwa loo dira shaqaba shaqaday ka adag tahay waxayna beeri jireen beeraha sidoo kalena waxay dhisi jireen wadooyinka dhex mara jasiiradaasi waxaa hubaala inaysan shaqooyinkan ahayn shaqooyin adag balse dhibaatada haysatay maxaabiistan ayaa ahayd inta ay shaqaynayaan in ay koox isugu xirnaayeen waxaana la isugu xiri jiray silsilado loogu wada xiray qoorta taasoo u diidi jirtay inay cararaan ama ay isku dayaan in ay sameeyaan iska caabin nuux walba ay tahayba waxaana la marin jiray maalin walba ciqaab adag oo arxamdaro ah waxayna gaari jireen heer uu midba midka kale uu dilo kaliya si loo dilo oo loogu xukumo dil toogasho ah ciqaabta iyo nolosha arxanka daran ay ku noolaayeen maxaabiista ku xirnaya xabsiga jasiiradaas ay ka dhiseen gumaystaha ingiriiska awgeed jasiiradan ayaa noqotay maanta jasiirad habeenkii laga maqlo dhawaq iyo qaylo aan kala joogsi lahayn gaar ahaan goobta uu ku yaalay xabsigaas ma jirto cid ilaa iyo hadda fasiraad u heshay meesha ay ka imaanayaan codadkaas laakiin sidaasi ay tahay waxaa jira dalxiisayaal ku dhiirada u dalxiis taga jasiiradan oo soo ogaada sirta ku duugan jasiiradan waxaana sanad walba u dalxiis taga ku dhowaad 30,000 oo dalxiisayaal ah aad baad u mahadsantihiin daawadayaal barnaamijka ogaalka dunida waa inaga inta haddii ay jiraan jasiirado aan ka tagnay inoogu soo qora commentiga waa mahadsantihiin